bismillaahi raxmaani raxiim kulan wacan oo wanaagsan daawadayaal halkani waa channelka wararka ee Somali News ku soo dhawaada timinteena habeenimo qodobada ugu waaweyn waxa qaybka taliyaha ciidanka xooga dalka Soomaaliya oo fariin degdeg ah u diray ciidamada qalabka sida qaybahooda kala duwan kadib shir jaraa'id oo qabtay wasiirka amniga dawladda Soomaaliya oo sheegay in tilaabo laga qaadi doono saraakiil joojiya barnaamijyo ka socday maanta magaalada Muqdisho ee helada Sheekh Mukhtaar Roobow oo ku gacan saara warkii ka soo baxay filan Soomaaliya waxna kama jiraan ku tilmaamay ra'iisul wasaare Rooble oo kulan la qaatay mas'uuliyiin ka socotay dawladda Mareykanka kalena hadlay xaaladda guud ee amniga dalka iyo sidoo kale doorashooyinka iyo madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaahi Deni oo gaaray magaalada Muqdisho halka uu tagay ka qaybgalka shirka u dhawaan ku dhawaaqay ra'iisul wasaaraha xukuumadda xilgaarsiinta qodobada iyo qodobo kale ayaan ku faahfaahineynaa timinteena u diyaar garooba daawadayaal markale kulan wacan oo wanaagsan waxaad ku soo dhawaataan qodobada aad maqasheen iyo kuwa kale oo ayna faahfaahintooda guda galno haddii aynu ku hormarna taliyaha ciidanka xooga dalka ee Soomaaliya General Odawa Yuusuf Raage ayaa uga degay ciidamada inay ku milmaan arrimaha siyaasadda dalka haatan ka taagan waxa maanta xarunta wasaaradda gaashaandhigga xukuumadda federaalka ee Soomaaliya kulan ku yeeshay saraakiisha ciidamada militariga dawladda federaalka ee Soomaaliya waxaana kulankaasi shir gudoominaya taliyaha ciidanka xooga dalka General Odawa Yuusuf Raage kulankan saraakiisha ciidamada militariga waxa looga hadlay xaaladihii ugu dambeeyay amniga dalka howlgallada ka dhanka ah ururka al-shabaab ee gobolada ka socdo iyo sidii loo dardargelin lahaa howlaha horyaala ciidamada qalabka sida uguna hortagi lahaayeen inuu xilligan qallaaso dalka ka dhaco taliyaha ciidanka xooga dalka General Odawa Yuusuf Raage ayaa kulanka kadib warbaahinta la hadlay waxaanu dhammaan ciidamada qalabka sida uga digay inay ku milmaan arrimaha siyaasadda isla markaana u sheegay in cid gaar ah aysan u helin xilligan waqti xaadirkan uu dalka ku jiro taliyaha Odawa ayaa waxa ciidamada faray inay dalka ugu shaqeeyaan sida ay ugu dhaarteen balse ay ka reeban tahay inay dadka isku haya siyaasadda ay la kala saftaan xilli uu jira khilaaf xooggan oo u dhaxeeya madaxweyne Farmaajo iyo ra'iisul wasaare Rooble ayuuna ku soo aadaya hadalka Odawa ugu dambeyntii taliyaha ciidanka xooga dalka General Odawa Yuusuf Raage ayaa tilmaamay in loo baahan yahay in ciidamada dawladda ay xoojiyaan howlgallada lagula dagaalamayo al-shabaab iyo kooxaha kale ee amniga dawladda halista ku ah ee gobolada dalka ka socda waxaanu bogaadiyay qaybaha kala duwan ee ciidamada qalabka sida digniinta u diray ciidamada General Odawa Yuusuf Raage ayaa ku soo beegantay iyadoo uu jira khilaaf xooggan oo u dhaxeeya madaxweynaha muddaxileedkiisa dhamaaday iyo ra'iisul wasaaraha xukuumadda xilgaarsiinta waxaana ra'iisul wasaaraha xukuumadda xilgaarsiinta maalin ka hor uu sheegay in ciidamada isaga ka amar qaadanayaan oo aysan jirin amar ay ka qaadan karaan Maxamed Cabdullaahi Farmaajo maadaama uu sheegay in waqtigiisa dastuuriga ah uu dhamaaday General Odawa Yuusuf Raage waxa uu sidoo kale ugu baaqay ciidamada qofkii ka dhaga adeega hadalkiisa isla markaana baalmaro oo haatan la kala safta dhinacyada siyaasadda Soomaaliya waqtigan inay ka qaadi doonaan darajada iyo xilka isla markaana dalka iyo dadka sida ay ugu dhaartaan ay ugu shaqeeyaan oo mas'uuliyadda guud ee amniga dalka ay awood isugu geeyaan saraakiisha ciidamada qalabka sida kulankooda ayaa sidoo kale waxa looga hadlay arrimaha siyaasadda dalka ee xilligan kacsan waxayna dhinacyada isku haya ugu baaqeen iyaga oo u turaya dalka iyo dadka inay ka waantoobaan wax kasta oo dhibaato dalkan u horseedi karo wasiirka amniga dawladda Soomaaliya ayaa sheegay in tilaabo ay ka qaadayaan saraakiil joojiya dibadbaxyo ay dhigayeen dad ka soo horjeeday muddo kororsiga Farmaajo iyo inuu filada ku sii jiro wasiirka wasaaradda amniga dawladda federaalka ee Soomaaliya Cabdullaahi Maxamed Nuur ayaa ka hadlay falkii maanta lagu joojiyay barnaamijyo ay dhigayeen dad shacab iyo mas'uuliyiin kaas oo laga soo horjeeday madaxweyne Farmaajo isla markaana lagu taageerayo Rooble waxay soo gaartay cabashaha in hay'adaha amniga gaar ahaan booliska dalka oo waxyeello u geysteen mas'uuliyiin iyo shacab ka qayb galayay isku soo bax nabdeed ayuu yiri wasiirka amniga sidoo kale waxa uu sheegay Cabdullaahi Maxamed Nuur inay sameyn doonaan baaritaan sida ay wax u dhaceen waxaana shacabka iyo mas'uuliyiintaas u sheegay inuu xaqiijinayo in mar walba aan la aqbali doonin in saraakiisha hay'adaha amniga ay ku kacaan falalka noocaas oo kale lagu eedeeyay ugu dambeyntii wasiirka amniga dawladda Soomaaliya Cabdullaahi Maxamed Nuur ayaa ugu baaqay shacabka inay isdejiyaan lana ilaaliyo xasiloonida caasimadda lana aqbali kale xilligan rabshado iyo banaanbaxyo dalka ka socdo marka laga soo tago kuwa aan ujeedooyin gaar ah lahayn warkan ka soo baxay wasiirka wasaaradda amniga ee Soomaaliya ayaa yimid kadib markii siyaasiga Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame iyo wasiirka hore amniga Galmudug Axmed Macalin Fiqi ay sheegeen in taliye ku-xigeenka ciidanka booliska Soomaaliya Kaniif iyo taliyaha ciidanka booliska gobolka Banaadir Farxaan Qaroole ay joojiyeen dibadbax lagu taageerayo ra'iisul wasaare Rooble oo maanta ka socday Muqdisho dhanka kale Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame ayaa ka hadlay arrintan waxaana fariin u diray ra'iisul wasaaraha iyo sidoo kale wasiirka amniga xukuumadda ra'iisul wasaare Rooble dibadbax looga soo horjeeda afgambigii Farmaajo waxa hor istaagay Farxaan Qaroole iyo Kaniif ra'iisul wasaare Rooble iyo wasiirka amniga waxaan ka codsanayaa inay dadka ay ka horwareejiyaan haraadigi kaligistaaliska ayuu yiri Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame booliska ciidamada booliska Soomaaliya ayaa tira dhowr jeer sidaan oo kale horay u hor istaag ugu sameeyay barnaamijyo looga soo horjeeday madaxweynaha madaxweynaadkiisa dhamaaday Maxamed Cabdullaahi Farmaajo
wasiirka amniga dowladda Soomaaliya Cabdullaahi Maxamed Nuur waxa uu sheegay in baaritaan ay ku sameyn doonaan saraakiisha ka dambeysay in ay banaanbaxyada soo taagaan haddii lagu cadaatana ay tilaabo xoogan ay ka qaadi doonaan oo ay mudan yihiin waa sidoo xusay markaana ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka ee Soomaaliya Maxamed Xuseen Rooble ayaa maanta qadka telefoonka waxa uu kulan kula qaatay kaaliyaha xogayaha arrimaha dibadda ee Mareykanka u qaabilsan qaaradda Afrika xilli ay ka soo daraysa xiisadaha ka taagan dalka iyo arrimaha doorashooyinka ku saabsan labada mas'uul ayaa waxay ka wada hadleen xaaladihii ugu dambeeyay dalka amniga doorashooyinka sida lagu sheegay qoraal ka soo baxay xafiiska ra'iisul wasaare Rooble sidoo kale kaaliyaha xogayaha arrimaha dibadda ee Mareykanka ee u qaabilsan Afrika ayaa ra'iisul wasaare Rooble ka dalbatay in xiisadaha siyaasadeed ee dalka la dejiyo isla markaana la daadajiyo doorashooyinka dalka ka socda si loo soo afjaro xiisadaha dalka mugdi gelinaysa in doorashadiisa ay sii socoto dalalka taageera Soomaaliya ayaa xilligan culays siyaasadeed saaraya madaxda dalka ugu sareysa si xal looga gaaro khilaafyada siyaasadeed ee soo laablaabtay kuwaas oo saameyn ku yeeshay dhamaystirka doorashooyinka dalka oo tiro dhowr jeer muddadeeda hore u dhaaftay dowladda Mareykanka ayaa kol hore waxay si buuxda u taageertay ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Rooble oo dagaal culus xilligan kala dhaxeeya madaxweynaha madaxweynaadkiisa dhamaaday Maxamed Cabdullaahi Farmaajo waxayna sheegeen inay tilaabo ka qaadi doonaan dadka caqabadaha ku ah nabadda Soomaaliya waxayna ka hor timid shaqo joojintii madaxweynihii hore ee Soomaaliya uu ku sameeyay ra'iisul wasaaraha xukuumadda xilgaarsiinta dowladda Mareykanka waxay rumaysantahay in Rooble yahay mas'uulka kaliya xilligan dalka ka saari kara xaaladaha kala guurka ah isagoo sheegay in kulanka golaha wadatashiga qaranka looga baahan yahay in si degdeg ah loo daadajiyo loona hormariyo hanaanka doorashooyinka dalka ka socdo ehelada Sheekh Mukhtaar Roobow ayaa ku gacan saaray warqadii ka soo baxday hay'adda NISA ee ku saabsaneed xaaladda Sheekh Mukhtaar Roobow ehelada Sheekh Mukhtaar Roobow Cali ayaa waxay ku gacan saareen xog ku jirta warqad ka soo baxday taliska hay'adda NISA ee nabad sugidda qaranka ee Soomaaliya oo lagu sheegay inuu nabad qabo caafimaadkiisana uu yahay mid wanaagsan xaaskiisa iyo cidii kale oo dalbatana ay booqdaan sidoo kalena waxbarasho jaamacadeed uu ku jiro amnigiisana gacanta ay ku hayaan ciidamada amniga ay ku tilmaameen waxba kama jiraan Ibrahim Roobow Cali oo walaalo yihiin Sheekh Mukhtaar Roobow ayaa waxa uu ku doodayaa in muddo 3 sano ah ayna indhihiisa saareen walaalkooda oo cid booqatana haysan jirin caafimaadkiisana ay ka walwalsan yihiin balse warka ka soo baxay NISA uu yahay mid warqadda kaliya la isaga soo qoro aysan waxba ka jirin warqadda NISA ayaa waxay jawaab u ahayd amar ka soo baxay wasiirka amniga dowladda Soomaaliya oo lagu farayay inay xaaladda Sheekh Mukhtaar Roobow muddo 48 saac gudahooda ah ay warbixin dhameystiran oo faahfaahsan hay'adda NISA ay ku keento taliyaha hay'adda NISA ee ku meelgaarka ayaa sinfaray hayaan xusay in uu Sheekh Mukhtaar Roobow xaaladiisa wanaagsan tahay isla markaana ehelkiisa ay si joogto ah uga warqabaan mid ka mid ah jaamacadaha dalalka caalamka oo dhigto oo heerka labaad ee Masar digriga uu maraya xilligan Sheekh Mukhtaar Roobow uu yahay arday jaamacadeed sidoo kale ayaa sinfaray ayaa xusay in eheladiisa ay booqasho ugu yimaadaan balse walaalkiis Ibrahim Roobow oo la hadla BBC-da ayaa sheegay inaysan waxba ka jirin hadalka NISA isla markaana ilaa haatan ay wali dalbanayaan inay cadaalad u helaan isla markaana xaaladiisa caafimaad warbixin dhameystiran looga keeno maadaama ay walwal badan ka qabaan oo ilaa muddo 3 sano oo xabsi uu ku jiro aysan arag qof ehelkiisa ah lama oga tilaabada kale oo qaadi doono wasiirka amniga dowladda federaalka ee Soomaaliya oo hore 48 saac ugu qabtay hay'adda NISA balse ay uga soo jawaabtay waxaana hadalkan beeniyay ehelada Sheekh Mukhtaar Roobow oo waxba kama jiraan ku tilmaamay madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaahi Dani ayaa maanta gaaray magaalada Muqdisho caasimadda dalka Saciid Cabdullaahi Dani madaxweynaha maamulka Puntland iyo wafdi horkacaya ayaa lagu soo dhaweeyay garoonka diyaaradaha aadan cad ee magaalada Muqdisho waxaana soo dhaweeyay mas'uuliyiin kala duwan oo dowladda federaalka ee Soomaaliya ka tirsan xogta safarka Saciid Dani ayaa la sheegay inuu ku qatomo wax ka qabashada xiisadaha ka taagan magaalada Muqdisho iyo sidoo kale ka qaybgalka shirkii hore ugu dhawaaqay golaha wadatashiga qaranka ra'iisul wasaaraha xukuumadda xilgaarsiinta Maxamed Xuseen Rooble sidoo kale maalinta bari ayaa la qorsheynayay in madaxweynaha dhankiisa Jubaland Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe uu soo gaaray magaalada Muqdisho oo dhankiisa ka qaybgalaya shirkaas waxaana horey shalay magaalada Muqdisho u gaaray madaxweynayaasha Galmudug iyo Hirshabeelle halka lafta gareen madaxweynaha maamulka Koonfur Galbeed oo horey si cad u taageeray madaxweynaha madaxweynaadkiisa dhamaaday Maxamed Cabdullaahi Farmaajo Saciid Cabdullaahi Dani ayaa kulamo ka sii bilaabi doona magaalada Muqdisho taas oo xaaladaha dalka wax looga qabanayo waxayna sidoo kale Saciid Cabdullaahi Dani uu yahay musharax madaxweynaha xilligan u tartamaya jagada ugu sareysa ee dalka sida ila xog ogaaliyaha ku dhow ay hore u shaaciyeen inta ayaana ku soo gabagabeynaa daawadayaal barnaamij wareedkan aad kala socoteen channelka wararka ee Somali News meel lamida inta kulmi doona nabadgelyo